السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kamida Barcelona oo laga hor istaagay inay ku laabato Camp Nou, Manchester United oo la wareegtay Bryan Mbeumo, Arsenal iyo Chelsea oo ku loolamaya saxiixa Xavi Simons, Manchester City oo bilowday bacsiga bedelka goolhaya Ederson, Barcelona oo go'aan lama filaan ka soo saartay qiimaha Liverpool, dhanka kale Liverpool oo hal shardi ku xirtay iibka ciyaaryahan Rodrigo, Madrid oo iibinaysa 3 ciyaaryahan, Cole Palmer oo banaanka keenay saaxiibka ugu dhow ee Chelsea, iska iloonaana Manchester United oo wada hadal la furtay goolhaya cusub, 4 kooxood oo ugu cadcad saxiixa ciyaaryahan Darwin Núñez. aynu ku bilownay kooxda Barcelona ayaa laga hor istaagay inay dib ugu laabato garoonka taariikhiga ah Spotify Camp Nou kahor bisha Agoosto kadib markii golaha magaalada Catalonia ay go'aamiyeen in garoonka aan weli ammaan u ahayn taageerayaasha sabab la xiriira shaqooyin dhisme aan weli la dhammaynin. Elena Forte oo ah madaxweyne ku-xigeenka dhanka dhaqaalaha ee kooxda oo arrintan faahfaahin ka bixiyay ayaa la hadlay baarka online. waxaan naga go'nayd inaan ku laabano Camp Nou 10 bisha Agoosto si aan ugu qabanno koobka Quwaan Gambar, balse waxaan heshiis la gaarnay golaha magaalada si dib loogu qorsheeyo dhismaha. sababta ugu weyn ayaa in shaqada dhismaha weli ay socoto oo ayna suurtagal lahayn in si buuxda loo waafaqo shuruucda magaalada si loo helo ogolaanshaha rasmiga ee deeganaanshaha garoonka. Forte ayaa sheegay in baaxadda iyo nooca mashruuca Camp Nou oo ah isbedel weyn oo maalin walba uu ka duwan yahay dhismayaasha caadiga ah, taasi oo ka dhigaysa in loo baahdo waqti dheeraada iyo hab gaar ah oo loo jaan qaado. Barcelona ayaa haatan qorsheynaysa inay xilli ciyaareedka cusub ay ku bilaabatay Stadio Olympique Luz Company xilli ciyaareedkii horena ay ku guuleysatay. kooxda Manchester United ayaa ugu dambeyntii heshiis la gaartay Brentford si ay ula saxiixato weeraryahanka reer Cameroon Bryan Mbeumo, sida uu sheegay wariyaha caanka ee David Orazante. heshiiska oo qaatay toddobaadyo wada hadal ah ayaa lagu sheegay inuu gaaray 70 milyan, waxa uuna ka kooban yahay 65 milyan oo la bixin doono 4 qaybood ilaa 6 milyan oo gunooyina. Mbeumo oo 26 sano jir ayaa doortay United isagoo diiradda saaray ku biirista Red Devils. hadda wareegii ugu dambeeyay saxiixa ayaa haatan lagu jiraa, sida uu qoray wargeyska loo yaqaan The Athletic. July 17 United ayaa kor u qaaday dadaalkii ay ku doonaysay Mbeumo inay ku keento Old Trafford iyagoo markaasi miis ka saaray 65 milyan iyo 5 milyan oo gunooyina. Brentford waxay doonaysay inay hesho lacag ka badan intii ay United ku bixisay Matheus Cunha oo laga keenay Wolves, taasi oo 62 milyan. United waxay markii ugu horeysay soo bandhigtay 45 milyan iyo 10 milyan oo dheeriya, taasi oo la diiday. dalabkii labaad ayaa gaarayay 55 milyan iyo 7.5 milyan oo gunooyina, waana la diiday mar kale. heshiiska ayaa hadda u muuqday mid la soo afjaray, wuxuuna Mbeumo noqon karaa saxiix kale oo muhiim ah oo lagu xoojinayo kooxda macallin Robin Almiron. weeraryahanka Netherlands Xavi Simons ayaa si weyn u soo jiitay indhaha kooxo waaweyn sida Arsenal iyo Chelsea inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga, iyadoo la xaqiijiyay inay doonayo inuu ka tago Leipzig. sida uu sheegay Fabrizio Romano, kooxo badan oo ka tirsan Premier League ayaa si dhow ula socda xaaladda Xavi Simons, balse ilaa ay hadda wax dalab rasmi ah lagama gudbin. sidoo kale ma jirto koox wada hadal toos la furtay ciyaaryahanka. warbixintu waxay intaasi ku dartay in wada hadaladii ku saabsanaa suurtagalnimada Simons uu ugu laaban karay Barcelona ay ilaa ay haatan horumar laga samaynin. Leipzig ayaa laacibka la soo wareegtay xagaagii hore iyagoo ka soo qaatay Paris Saint-Germain heshiis gaaraya 80 milyan oo ay ku jiraan gunooyin. sidaas daraadeed kooxda Jarmalka ahi ma doonaysa inay iska fasaxdo ciyaaryahanka xilli ciyaareedka. Simons ayaa ka mid ah daayarka hibada badan ee kubadda cagta Yurub, waxaana la filayaa inuu ka mid noqdo kuwa sida weyn looga hadalhayo kooxda Leipzig oo ogolaan kara inuu baxo. kooxaha Premier League ayaa hadda isha ku haya iyagoo tartan xoogan u gali doona ciyaaryahankani. kooxda Manchester City ayaa si rasmi ah Burnley waxa uga weydiisay suurtagalnimada helitaanka goolhayihii hore ee James Stafford sida ay ku warantay Sky Sports. Stafford oo 22 sano jir ah kana soo baxay akademiyada Manchester City ayaa ku biiray Burnley sanadii 2023 heshiis ku kacaya 19 milyan ay ku jiraan gunooyin. heshiiskaasi
wuxuu sidoo kale xambaarsanaa qodob dib u iibsasho ah oo Manchester City u ogolaanaya in 40 milyan ay ku soo ceshato. Haatan City ayaa doonaysa in Trafford ay dib ugu soo celisay Etihad Stadium, balse waxay rajeynaysaa in Burnley ay ogolaato qiimo ka hooseeya midka ku jiray qodobkii. haddii heshiiskan uu hirgalo, Burnley waxay wajihi doontaa baahi degdeg ah oo helitaanka goolhayo cusub. mid ka mid ah xulashooyinka ay hirgelinayso waa Steven Ortega oo 31 sano jira kana tirsan Manchester City. Ortega ayaa muddo 3 xilli ciyaareed ah kayd u ahaa Ederson, isagoo u saftay kooxda 56 kulan dhammaan tartamada oo dhan. James Trafford wuxuu u ciyaaray Burnley 73 kulan ilaa hadda, waxaana lagu qiimeeyay 22 milyan. waxaa sidoo kale uu xusid mudan in Newcastle ay hore u dalbatay Trafford iyadoo miis ka saartay 27 milyan, balse Burnley ayaa soo diiday. haddii Trafford uu ku laabtay Etihad, waxay noqon doontaa mid astaan u ah daacadnimo, isagoo halkaasi ku qaatay 8 sano. inkastoo uusan weligiis ka soo muuqanin kooxda koowaad, wuxuu amaah ugu ciyaaray Cordin Bolton Wanderers ka hor intaanu si rasmi ah ugu biirin kooxda Burnley. Barcelona ayaa go'aan adag ka soo saartay qorshihii ku aadanaa weeraryahanka Liverpool Diaz, iyagoo cadeeyay in aanay bixin doonin lacag ka badan 60 milyan sida lagu soo wariyay. inkastoo Blaugrana ay si aad u doonayso xoojinta weerarka, haddana ma doonayaan inay galaan tartan qiimo kororsi ah oo ku saabsan xidiga Colombiyaanka kaasi oo 27 sano jira, isla markaana si heer sare ah uga soo muuqday horyaalka Premier League. Diaz ayaa loo arkaa ciyaaryahan si weyn u caawin kara Barcelona dhanka weerarka, balse dhibaatooyinka dhaqaale ee kooxda haysta awgeed madaxda Camp Nou waxay diiradda saarayaan xasiloonida maaliyadeed ee kooxda, iyagoo diiday inay jabiyaan xadka 60 milyan. taa beddelkeed, kooxda ayaa hadda baadigoob ugu jirta xulashooyin ka jaban kan haatan, iyadoo suuqa heer xasaasi ah uu marayo. qaabka cusub ee taxadarka ee Barca ayaa muujinaya isbeddel istiraatiijiyadeed ee isku dheelitirka yoolka garoonka iyo xakamaynta qarashaadka. taageerayaashu waxay si dhow u daawan doonaan ciyaaryahanka kale ee la keeno. kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in indhaha ay ku hayso weeraryahanka Real Madrid Rodrigo, balse ma ahan qorshaha ugu muhiimsan xagaaga ilaa iibinta Luis Diaz uu kooxda. sida uu qoray wargeyska loo yaqaan Diario AS, Liverpool waxay si dhab ah u qaadi doontaa Rodrigo oo kaliya haddii Diaz uu ka tago kooxda, inkastoo Liverpool ay si caadi ah u sheegtay kooxaha doonaya ciyaaryahankan in Diaz uusan iib ahayn. haddana labada kooxoodba waxay sii wadaan isku daygooda soo iibsashada. Bayern ayaa la sheegay inay gudbisay dalab 67 milyan oo Diaz, balse si degdeg ah ayaa loo soo diiday iyadoo haatan diyaarinaysa dalab labaad. dhanka kale, Barcelona ayaa xiriir toos ah la sameysay wakiilka Diaz, iyagoo agaasimaha ciyaaraha ee kooxda lagu sheegay inuu aad diiradda ugu saaran yahay saxiixani. Liverpool ma doonaysa inay lumiso Diaz, gaar ahaan kadib geeridii naxdinta lahayd ee Jota. dhanka kale, Madrid weli waxay kalsooni ku qabtaa Rodrigo, inkastoo uu si liita ugu ciyaaray koobkii naadiyada. kooxda ayaa ku qiimeysay lacag 100 milyan. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay doonayaan inay 3 ciyaaryahan ay ka diraan kooxda si ay u maalgeliyaan ciyaaryahanka Chelsea qadka dhexe ee Enzo Fernandez. Los Blancos oo hogaaminaya Marcelo Alonso ayaa si weyn u danaynaya inay la soo saxiixdaan ciyaaryahanka Argentine kula guuleystay koobka adduunka. si kastaba, kooxda Reis Ben ayaa og inay u badan tahay firfircoonida booska kooxda, isla markaana ay kordhinayaan dhaqaalaha si ay u xoojiyaan heshiiska Enzo Fernandez. sida uu qoray wargeyska loo yaqaan Figes, ciyaartoyda sida Rodrigo, Eduardo Camavinga iyo Frank Garcia ayaa loo sheegay in laga fasaxayo xagaagan kooxda. tababaraha cusub macalin Xavi Alonso ayaa ciyaartoydaasi ka saaray qorshihiisa, waxaana la siiyay ogolaanshiyo ay ku raadsan karaan kooxo cusub. Rodrigo muusan helin fursad joogta ah Club World Cup-kii ka dhacay Mareykanka, halka Camavinga aan weli lala xiriirinin koox gaara. dhanka kale, AC Milan ayaa la sheegay in ay xiiseynayso ciyaaryahan Frank Garcia. iibinta ciyaartoydaasi waxay fursad u tahay imaanshiyaha Enzo Fernandez garoonka Santiago Bernabeu. weeraryahanka kooxda Chelsea ee xulka qaranka England Cole Palmer ayaa shaaca ka qaaday in daafaca kooxda Tosin Adebayo uu yahay saaxiibkiisa ugu dhow gudaha kooxda Stamford Bridge.
labada ciyaaryahan reer England ayaa horey ugu wada tirsanaa akademiyadda Manchester City taasi oo saldhig u ahayd xiriirkooda gaarka. waraysi uu dhawaan siiyay Daily Mail, Palmer ayaa ku yiri waxaan wadanahay dad isku mid ah una ila eg yahay tan iyo markii uu yimid Chelsea aad baan isku fahanay hadda nalama kala saari karo annaga. Palmer ayaa ku biiray Chelsea sanadii 2023 isagoo kaga yimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City halka Adriba ayuu kaga soo wareegay kooxda Fulham sanadii 2024. labadooduba waxay durba muujiyeen xiriir saaxiibtinimo oo xoogan. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo Chelsea ay isku diyaarinayso kulan saaxiibtinimo bisha Agoosto ay la ciyaari doonaan kooxda Leverkusen taasi oo qayb ka ah diyaargarowga xilli ciyaareedka cusub. kooxda Manchester United ayaa la sheegay inay xiiseynayso goolhayaha da'da yar ee Semi Lemanis oo u ciyaara kooxda Antwerp kana tirsan xulka Belgiumka. sida uu sheegay wariyaha suuqa kala iibsiga Ben Jacobs, kooxda Red Devils ayaa si dhow ula socota Lemanis tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. xagaagan labada kooxood ayaa horey u yeeshay wadahadal hordhac oo ku saabsan suurtagalnimada heshiiska taasi oo muujisay in United ay si dhab ah u doonayso laacibka. Lemanis oo 23 sano jir ayaa bandhiga wacan ka sameeyay taasi oo soo jeedatay indhaha kooxda ka dhisan Old Trafford kuwaasi oo doonaya inay xoojiyaan booska goolhayaha iyadoo la og yahay tartanka booska koowaad ee Andre Onana in weli uu furan yahay. inkastoo aan weli la gaarin heshiis buuxa haddana inay wada hadallo la furto xidigan waxay cadeynaysaa in United ay si dhab ah u eegayso fursadda ay ku heli karto ciyaaryahankani. warbixin uu daabacay Code Offside ayaa xaqiijisay in heshiiska weeraryahanka reer Uruguay ee Darwin Núñez uu ku gaari lahaa kooxda Napoli uu si rasmi ah u burburay. waxaana jira kooxo kale oo hadda isku diyaarinaya inay u dhaqaaqaan saxiixa ciyaaryahanka inta lagu guda jiro suuqa xagaaga. sida lagu sheegay warbixinta, Liver ayaa weli ku adkaysanaysa in la siiyo lacag 70 milyan inkastoo Núñez uusan weli si buuxda u muujinin tayadiisa tan iyo markii uu kaga yimid Benfica. warbixintu waxay sheegtay in kooxaha Al Hilal iyo Al Nassr ee dalka Sacuudiga ay yihiin kuwa ugu cadcad la wareegitaanka xidigan halka Barcelona iyo AC Milan sidoo kale inta ay la socdaan xaaladiisa balse aysan weli wax dalab rasmi ah ka gudbin. Napoli oo markii ugu horeysay rabtay Núñez ayaa isku dayday inay ciyaaryahanka wadahadal la gasho waxaana ugu dambeyntii istaagay wadahadalkii Talyaaniga ka socday. si kastaba weeraryahanka ayaa weli ka mid ah kuwa laga yaabay inay ka baxaan xilli ciyaareedka kooxdooda. dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa bilowday wadahadal toos ah ay la gashay kooxda Frankfurt si ay uga helaan ciyaaryahan Hugo Ekitike kaasi oo ku lug lahaa 33 gool dhammaan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore waana bedelka rasmiga ee suurtagalka ciyaaryahan Darwin Núñez.